kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeeni faaqidaada wararka. barnaamijka waxa idin la socodsiinaya hadii Allah awood la ogolaado anigoo ah Maxamed Saciid Cali Maxamed Turki waxaanad kala socotaan barta aan YouTube-ka ku leeyahay ee Maxamed Turki channel. barnaamijkeena waxaaynu ku soo qaadan doonaa madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ugu baaqay hogaamiyayaasha labada xisbi qaran inay isugu yimaadaan kulan degdeg si loo qabto doorasho isla markaasina loo dhameeyo khilaafka hareeyay xisbiyada qaranka ee markaasi ka dhaxeeya. madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu tilmaamay in Soomaaliland ay qabsan karto doorasho iyadoo markaasi aqoon ahaan iyo waliba dhaqaale ahaan toona aan laga taageerin. waxa uuna saddexda xisbi qaranba uu dusha ka saaray inay ka mas'uul yihiin doorashada muddo raagtay ee aan markaasi aan dhicin. madaxweynaha oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yiri waxaynu u baahanahay Soomaaliland inta isla ogol oo khilaafka dhexdeedu yar yahay oo meel wada jeeda oo dhexdeedana ka tartanta oo ka loolanta haddana dadka guud ka wada shaqeysa. taana waxaynu ku helaynaa inaga oo arrimaha mabaadiga ka heshiina waxaynu ku helaynaa inaga oo xisbiyadu ka heshiiyaan khilaafaadka jira. waxaan u arkaa inaynu doorasho qabanno degdega waa muhiim dalkaana u baahan. waynu qaban karnaa doorasho iyadoo cid naga caawin dhaqaale iyo aqoontoona waan qabaa. doorashadu waxay dib ugu dhacaysaa waa khilaafka xisbiyada. cid kale eedda lama leh. xisbiyadu markay diyaar garoobaan ee doorashada ay ku heshiiyaan khilaafaadka dhaqaalaha iyo talada iyo sharciyada waa la helaya. nacasnimada ugu badan waxay fulaysaa saddexda xisbi ee ku heshiin waayay inay doorasho qabsadaan ee khilaafkooda sanad jiitamaya. doorashada dib u dhacaysaa dhexdeena khilaaf bay ku abuuraysaa iyo nacayb dhexdeena waayo qofka la doortay muddo 5 sanadood haddii uu kursiga banaan waayo oo sida xilku martada hel la waado kii kale kursiga si weyn colaad ka qaaday iyo nacayb ka kordhay. arrimaha dibaddana way naga dhaawacaysaa oo dad tashakari waayay oo doorasho ku heshiin waayay yaa la macaamilaya. waxa loo leeyahay dadka doorasho ku heshiin waayay meega harba inuu jiiday. sidaa daraadeed waxaan halkan doonayaa inaan uga baaqo labada gudoomiye xisbiyada mucaaradka ah inaanu shir degdeg ah soo nimaadno wiiga soo socda awalkiisa ugu dambeyn si aan ugu gorfayno khilaafaadkan si loo dhameeyo oo dalka doorasho u galo waqtiga. aad iyo aad baa mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.